sanad kasta 1.35 milyan oo carruur ayaa dunida ku dhasha iyagoo qaba xanuunka daloolka wadnaha ee loo yaqaan congenital heart disease. xanuunkan ayaana ka mid ah cudurrada ugu badan ee carruurta ku dhaca sida lagu daabacay International Journal of Epidemiology. inkastoo dalkeenu ku jiro marxalad soo kabasho oo dhinacyo kala duwan leh gaar ahaan dhanka caafimaadka, haddana waalidiin badan ayaa wajahaya xaalad adag oo ka dhalatay carruurtooda oo la nool xanuunka daloolka wadnaha, iyagoo ay dhakhaatiirtu ku wargeliyeen inay u baahan yihiin qalliin degdeg ah oo aan gudaha dalka waxba looga qaban karin. kaasuu wuxuu yidhi gabadhan wadnaheedu aad u furan yahay, waa halis ugu sugan yahay, gabadhan si degdega dibadda uu qaad wax ka qabo. doctor waxaan iri gabadhan anigu qarash uma hayo, meeshaasna wax uma qaban karo, ilaa aan baryaa. ilaa waa baryaa waa sax, ilaa waa baryayna, laakiin waxaa samaysan gabadhan si aad dibadda u qaadid 20 kun oo baax waxa lacag badan ma aha, dibadda u qaad lacag uma hayaan ilaa hadda. wuxuu yidhi doctorku qaralaasi wuxuu yidhi 5 kun anagu sidaan kala qayb qaadanaya ee inta ka zoorayso meel kale ma haya. wadnaha xanuun jiray alxamdulillah waa fiicanahay, qalina liisimiyaad fiicanahay, talyaana liiso qali hadda waan qaba. waagi hore mas'uukin hadda soo karaad ilmaha dheelka ilma dheelka marka xanaaqsana wadnaha cabbi jiray socodka sayd diwjiraad fiican kuleelka sidoo kale dhifteen. waxaan ilaa Hormuud Salaam Foundation. waxaan ahay Sabriin hooyadeed. Sabriin aad u dib qabtay marka ay neefsanaysa ma neefsan karin, marka ay wax cunayso wax ma cuni karin, marka ay seexanaysa ma seexan karin. habeenkii banaankaan la seexan jirnay, guri waan ka quusanay inaan guri seexano. badi qoysaska ayaa ah kuwa aan heli karin daryeelkaasi caafimaad maadaama uu yahay mid ka baxsan awoodooda dhaqaale. si qoysaskaas culayska looga qaado loona badbaadiyo nolosha carruurta isla markaana loogu abuuro nolol cusub, ayaa hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ay weheliyaan Marwo Adna Macallin iyo khubaro caafimaad oo u dhashay Talyaaniga oo ka socda cusbitaalka Niguarda ee gobolka Lombardy, saaxiibo caalami ah iyo kuwa maxalli ah, bilaabeen barnaamij muhiim ah oo wax ka bedelay nolosha carruurtaasi. barnaamijkan lagu daaweynayo carruurta Soomaaliyeed ee wadnaha ka xanuunsan waa barnaamij aan soo wadnay 3 sano ee la soo dhaafay. barnaamijkan waxa uu ka bilowday gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Milano ee gobolka Lombardia ee dalka Talyaaniga, ayadoo ku bilowday in canug iyo labo ilmaha wadnaha ka xanuunsan ee dalka Soomaaliya aan loo qaban karin in la geeyo dalka Talyaaniga oo lagu soo sameeyo qalliin iyo daaweyn. hase ahaatee waxaa ka qabsatay culays wuxuu ka yimid ilmahaas iyo waalidkooda yaa mataqaanaa kharashkii tigidkii noloshoodii safarkii iyo sahaydii intaba ayaa waxaa ka jiray culays. kadib waxaan ka wada hadalnay sidii carruurta Soomaaliyeed ee wadnaha ka xanuunsan in badan oo kamid ah mataqaanaa fursaskaas ay uga faa'iideysan lahaayeen. taas waxay suura gelisay in carruur loo qaado dalka Talyaaniga. inta carruurta dalka Talyaaniga loo qaadin waxaa jiro dhowr canug oo hore loo geeyay dalka Talyaaniga. dhakhtarka marka ugu sareeya qalliinka xagga wadnaha isbitaalka Liado Niguarda ee magaalada Milano ku yaala ayaa wuxuu yiri carruurta Soomaaliyeed marka ay imaanayaan Talyaaniga riboorka ay wataan iyo xaaladooda dhabta ah way kala duwan tahay. sidaa daraadeed waxaan u baahanahay inaan Soomaaliya tago oo carruurta u soo sameeyo baaritaan. inkastoo ay manaha lagula taliyay in Soomaaliya ay tahay meel aan la tegi karin, dhakhtarkaas wuxuu go'aansaday inuu Soomaaliya tago oo carruurta Soomaaliyeed weekendiga ama maalmihiisa fasaxa uu ugu daawo. waxaana yimideen November 2023 magaalada Muqdisho si ay ugu sameeyaan baaritaan carruurta Soomaaliyeed ee wadnaha ka xanuunsan. waxay baaritaankaasi sameeyeen 2 maalmood. taa waxay suura gelisay in ay baaritaan u sameeyaan carruur wadnaha ka xanuunsan oo tiradoodu ay gaarayso 119 canug oo ka kala yimid dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya. dhakhtarkii markii uu ku noqday dalka Talyaaniga waxa uu sameeyay liiska dadka ilmahaasi sida ay u kala degdegsan yihiin xaaladooda. waxaana uu diyaariyay 15 canug ugu darneed ayuu liiska mataqaanaa diyaariyay. barnaamijkan carruurta loogu diray dalka Talyaaniga ilaa iyo hadda waxaa lagu soo daaweeyay 24 canug oo maanta caafimaad qaba, xaaladoodii ay mataqaanaa aad iyo aad u fiican tahay. ilmahaas dhammaantood waxaa loo soo sameeyay waxa loo yaqaan open heart surgery ama qalliinka xabadka ama la furaayo. Talyaaniga markaan joognay dad dhaqaatiir aad iyo aad u wanaagsan oo na soo dhaweeyay oo noo ixsaan falay oo maaragtay carruurtii naga qaabilay noo daweeyay
maalintan tegayba aniga hal maalinaan nastay maalintii labaad horaa gabadhayda laga geeyay saalada ramadaan oo koowahan inta ka baxay ramadaan 25kiisina gurigeyga ku soo noqday caruurteedan la ciiday gabadhaydu caafimaad qabta alxamdulillaah ilaahay baa mahaddaas iskale waxaan leenahay marka qofkaas oo kaalin ka geysatay waa mahadsantiin